بسم الله الرحمن الرحيم وحان شعب كسوماليات مeel kasta ay joogan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka soo yara baxay xarunta uu ka socdo ama meesha ay ka socdo campaign-kii ololaha waxaan ugu talagalay shacabka Soomaaliyeed inaan la hadlo xilligan ayada ah waxaan rabaa marka hore inaan ka mahad celiyo qof kasta oo ka soo qayb qaadaysa doorashadan inay dhacdo oo ay dhamaadkeedii hadduu Ilaahay yiraahdo rajaynayna berri inay ku soo gabagabowdo si nabad ah waad ogtihiin doorasho xilli dheer iyo duruuf adag laga soo maray oo aan tiir dhaxaad u ahayn inay doorashadas dhacdo ay heetaa la socotaan waxaan kaloo rabaa halka inaga mahad celiyo dadka Soomaaliyeed ee igala shaqeynaya ololahayga doorashada oo 5 sano ila jiray oo ay garab taagnaa oo awoodda iyo tamarta aan ku socday dhiirigelinta isiinayay haddana campaign-ka ayagoo kumanaan kun ay qayb ka yihiin doonayaan inaan guuleysano oo har iyo habeen nala taagan halkaan ay uga mahad celinaya kuwa noo soo duceynaya kuwa telefoonada noo soo diraya dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba waa u mahad celinaya runtii ma jira xildhibaan aan la kulmay oo ii sheegin ilaa inay soo wacday ugu yaraan 7 ama 8 ilaa 10 qofood oo dhahaysa codkaaga si Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin saas qaarkood waalidiintooda ubadkooda ay ila hadashiyeen oo campaign-kan waxaa muuqata inuu yahay campaign uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay diilo weyn ayay ii muujiyeen xildhibaanad aan arkay waxa kale maalmihii la soo dhaafay walaalaha tanaasulay ee campaign-kayga runtii ku soo biiray ee garab taagan ee xarunta campaign-ka fadhiya xildhibaanada senatarada iyo asxaabta kale oo faraha badan oo na soo dhiirigelinayay oo nala taagnaa oo runtii aan ka arkay xildhibaanada aan la kulmay intooda badan aan ka arkay diilo iyo inay doonayaan isbedel dhab ah una arkaan isbedelka dhabka ah cidii hogaaminaysay annaga ayaan nahay meeshan xafiiska qolada fadhisa ee talada dalka haysa oo aan dhigi karna waa continuity waa wixii hore inay sii socdaan iyo isbedel inuu yimaado oo ah dadkii isbedelka hogaaminayay ina annaga nahay oo asxaabtii isbedelka hogaaminayso dhanna ay nagu taageereen ina annaga qaadano calankaas aan qaadno iyo dad kale oo tartan ku jiro horay inta fursadaha la siiyay soo lumiyay oo madax dalka ka soo noqday ayaa meesha ku wada jira iyo diilada aan ka arkay xildhibaanada waxay tahay in ay aad u daneynayaan codkoodan ay ku taageerayaan cid ay u arkaan inuu keenayo isbedel inuu keenayo berri hadduu Ilaahay yiraahdo guusha way imaanaysaa diiladii iyo karaamadii iyo sharaftii shacabka Soomaaliyeed berri ayay soo noqonaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan diyaar u nahay dawladda aan dhisi doono inay tahay dawlad ka jawaabaysa baahiyaha dadka Soomaaliyeed dawladdii aan aragtideeda 5 sano aan soo sheegaynay oo aan dadka Soomaaliyeed la wadaagayna kama aan qarsanin aragtideena waana loo soo dhibaateeyay waa u dul qaadanay waa u soo sabarnay waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali isku dhaqno Soomaali dhiigeena aan ku dhadhaxaadino Soomaali aan isku keenno midnimadeeda aan ka shaqeyno wanaageeda iyo horumarkeeda iyo diilada ay xildhibaanada ii muujiyeen runtii aan la kulmay boqolaalka ah waxay keenaysaa inaan ku dhiirano inaan berri hadduu Ilaahay yiraahdo aan guusha la soo hoyo doono oo dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan gees Soomaaliya meesha ay ka joogan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba laga soo bilaabo carto ilaa doorashadii carta ilaa doorashadii ugu dambeysay ee 2017 la qabtay dadka Soomaaliyeed waxay ka falceliyeen doorashada dhacday natiijadeeda si togan oo farxad leh oo damaashaad leh doorashooyinkii dhacayo dhan waxaan rajaynaynaa doorashada berri guusheeda lagu farxi doono inaan hogaami doono taas ayaan u aragnaa mid shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan wali shacabka Soomaaliyeed baaq baan u dirayaa sida aad xildhibaanada ula soo hadlaysaan haddaad waalid tihiin haddii aad walaal tihiin haddii kuwa u dhaxa aad tihiin haddaa kuwa saaxiib la tihiin haddaa kuwa kursiga ku matala aad tihiin waan arkay dadaalkiina waxaan ka arkay xildhibaanadan ka arkay falceliskoodan ka arkay ayaga ila wadaagay si wada saacadaha dhiman la hadla xildhibaanada la hadla kuwa inii ah waalidka iyo walaalaha iyo asxaabta intaba dadaalkii aawadeen si wada guusha way dhowdahay miraheedana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan gura doonaa berri ayaan gura doonaa oo ah ayaan dhow oo aan fogeyn waana halkii ay ku soo gabagabeeyay isbedelka saad la socotaan gudoonka la doortay ee labada aqal kulligood waa dadkii mucaaradka ama isbedel doonka ahaa waxaan rajaynaynaa isbedel doonka hoggaankiisa maadaama aan 5 sano la soo dhaafay aan haynay oo anagaan u soo taagnayn inay xildhibaanada ku khatimi doonaan hoggaanka isbedel doonka dadka Soomaaliyeed ay ka farxi doonaan waxaan markale u mahad celinayaa qof kasta oo doorashada ka soo shaqeysay hadday tahay gudiyada doorashada hore fiid iyo siid hadday tahay ciidamada ammaanka hadday tahay gudiga hadda labada aqal ee doorashada ka shaqeynaya hadday tahay ciidamada AMISOM ee ammaanka sugaya gudoonka labada aqal iyo qof kasta oo ka soo qayb qaata arintan ayada ah waxaan rajaynaynaa inaan mirihii guusha aan u soo dhabar adeegnay oo aan u soo taagnayn
oo aan soo sabarnay inaan berri guranayna hadduu ilaah yidhaahdo waana ii muuqataa shacabka soomaaliyeedna waxay heli doonaan dowlad aan taladeeda cidna laga teginin cidna laga tashanin dowlad aysan kambayn ama dowlad aysan koox dalaaliina oo siyaasiyiina dhinacyaha ka taagnayn oo ay dadku ayaga ka xigsanayaan oo ay leeyihiin annagaa ka wakiila madaxweynaha aan la dhihi doonin dowladtii shacabka ah oo dadka soomaaliyeed ayagu leeyihiin oo cid irideeda ka taagan ama ka xigtaa aysan jirin guusha waa dhowdahay soo duceeya ducadiina ayaa wax kasta ka muhiimsan garab istaagiinana sidoo kale waa inii mahad celinaynaa habeen dambe inaan wada dabaaldegno ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu